weligaa yuusan kaa fakan ninka leh sifooyinkan cajiibka ah. Soo dhawow daawade mar kale, waa anigoo ah Marya Adan Xaaji. Nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. Mahadsanid. Haddii aad ka hesho muuqaaladeena, fadlan nagu dhiirigeli lagtaada channelkeenana ku soo biir. Waadna ku mahadsan tahay tixgelintada. Isbeddelka dhaqanka ee hadda dunida ka jira ayaa waxa uu sababay in dumar badan ay noqdaan kuwo la yaaban nooca ninka ku habboon inuu kasbado qulubtooda uu noqdo ninka keliya ay haystaan ilaa geeridu ay kala geyso. Arrintan ayaa loo aaneeyay furiinka tirada badan ee xilligan soo kordhay. Si kastaba ha noqotee, maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa noocyada nimanka dhifka ah ee ay tahay inaad si adag gacmaha ugu qabsato. 1. Nin ixtiraama adiga iyo qoyskaaga. Waayahan dambe way adag tahay in la helo nin ku xushmeeya isla markaana xushmeeya qoyskaaga. Haddii fursad uun aad u hesho inaad shukaansato nin kugu xushmeeya sidaa tahay ama aad u eg tahay oo sidoo kale xushmeeya waalidiintaada iyo guud ahaan qoyskaaga, waxaad hal tallaabo u jirtaa inaad ku raaxaysato waxaa loo yaqaan nolol jacayl oo waarta. Nin aan hoos kuu dhigin ayay adag tahay in la helo. Sidaa darteed, haddaad hesho, waxaa lagugula talinayaa inaad si adag ugu hayso gacmahaaga. 2. Ninka qiimahaaga arko kuguna ammaana wanaagaaga. Nin ku dareensiiya sidaad boqorad u tahay ayaa ah waxa keliya ee loo baahan yahay markii la rabo xiriir muddo dheer jira oo waara. Inaad noqoto boqorad una dhaqanto sidii boqorad qudhaadu waxay keeni doontaa ninka inuu ogaado taas. Haddii uu ogaadana, markaa wuu kugu ammaanayaa inta badan. Tani waa mid ka mid ah tayada dhifka ah ee ay adag tahay in la helo. Mar haddii aad heshana, waa inaad u qabsataa si adag. 3. Garab iyo gacansiin. Guurka waa in midba midka kale uu ku taageero riyadiisa. Nin isku dayo inuu ku niyad jabiyo adigoo rajo xumo qaba inta uu kula talinayo, waa in laga fogaadaa qiimo kasta ha lahaadee. Waxaad u baahan tahay qof yididiilo leh oo ku taageera. 4. Aaminaad. Guur badan ayaa had iyo jeer u burbura arrimo la xiriira is-aaminaada. Haddii aad haysato shakhsi aamin ah oo isagana ku aaminsan, isla markaana aad ku aamini karto lacagtaada, sirtaada iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah, wiilkaas si dhow u ilaali. Way adag tahay in la helo. 5. Jacayl dhab ah. Adduunyada maanta, dadku waxay xiriir u galaan ajandayaal xun. Si kastaba ha noqotee, haddii aad aragto qof gebi ahaanba ku jecel, taasna ay tahay sababta ugu weyn uu kuu raadinayo ama kuu rabo, si naxariis leh waxaad isku daydaa inaad haysato ninkaas. Haddii aad ka hesho muuqaaladeena, fadlan nagu dhiirigeli lagtaada channelkeenana ku soo biir. Waadna ku mahadsan tahay tixgelintada. Waa wax agtada ka fudud, annagana wax weyn noo taraysa.